waxa weeye laba system baa adduunka jira mugta dowladda kacaanku waxay ku socotay system oriented waa hanta wadaag oo hanti iyo booq qof shaqayn karin meel aadan u sagaran karin oo halkee ka keentay halkee buu la aadaya soo garmays qofku wuxuu lahaa kaliya iska haystay laakiin yani hanti la dhici karay iyo meel la aadi karay iyo muuqaal nina ma samayn karin dhaqaalaha xoogiisa dowladda gacanta ku haysay qofka birwaata wuxuu soo geerisi loodiisa beertiisa yartay waxa asaga iska lahayd dukaankiisa iyo bakhaayadiisa asaga lahaa laakiin hanti buuran oo weyn oo qofku ma taqaana wax ku samayn karay ma jirinin waxa tooyo xawalda ninkii boqolkan xal toogtaali soo garanaysa Soomaad garan marka maxaa dhacay markii dagaalka la galay dagaalka wajiyaasha badan jabhadaha ka sukow inqilaab askariya kacaanka waa lagu sameyn waayay waxa lagu sameeyay inqilaab economic ah lagu sameeyay yaa ku sameeyay reer galbeedna lagu sameeyay markii dagaalka la galay baa waxa la yiri ma taqaanay isha dagaalka lacag dollarka aanu haysano dagaalkeenu ku galeynaa faranga valuta waxa la yahay la furaali faranga valuta maxay tahay faranga valuta waxa weeye ganacsatadu ha keento raashin wixii loo baahdo soo garmays marka waxa la yiri ganacsatadu ha keento wixii loo baahan yahay hay'adaha dawladuna kala wareegeen 15% ma taqaanay interest halasi waana waxa la keenayaana yeesan wax u dhimin wax soo saarkeena beeraheena warshadaheena ma taqaana kalluumaysigeena xooleen waxaanu dhoofinayay wax u dhimin waxay u dhimin oo inta dibadda marka hore laga keeni jiray ha keeneen ayaa liir maxaa dhacay marka hal ism biyana ka sheegaya waxa dhacay maxay yihiin waxa dhacday waxa weeye faranga valutadii marka saas go'aanka lagu gaaray ayaa wasiirkii ganacsiga markaa joogay baa wuxuu u yeeray ganacsatadii waxaad yeelaysaan raashin keena oo dawo keena oo qalabka dhismaha keena dowladda idin kala wareegayso oo la siinay lacagna waa lagu diraya 15% anu marka waxaan gobernatoora kaaga oo Shabeelle Dhexe warshada isnaay waxay soo saartaa maalintii 2100 kintaalo sonkora bay soo saartaa waxay dabooshaa 80% baahida dalka ee dabooshaa sonkorta 20% baa la keeni jiray warshadaas waxa ka shaqeynaysa 7500 oo shaqaale ah oo mushaarka qaadanaysa 22% dawladda ka siinaysa 78% waxa lagu darayaa budgetka dawladda dhexe ay qaadanayay oo 30% bay daboolaysa warshadaas muhiimada dalka u lahayd ninkii ninkii wasiirka ma dhihin intaas sonkora keena intaas bariisa keena intii la keeni jiray keena ma dhihin keenu 2,500,000 kintaalo sonkora hal mar la keeno markaas berbera dekedeedii iyo tii xabar iyo tii kismaayo buuray noqotay waxa loo yaaray maarayihii isna NG oo raashinka ku shaqada lahaa la wareeg bali maariin sonkorti dibad laakiin la wareeg qaaro uma haysto waxba uma haysto tii dalka oo ma sabab fataysay sonkorti qaadan ma qaadan karo sababtuna waxa weeye lacag ku gata ma haysto tii dibadda gato meelan dhigeelay lacag maariin baa ii orday oo lisaasa dhacday mushaarkiina akoonkiina waa ka xiray mushaarna shaqaale uma hayno warshadiina saas way xaaladeedii labadana israacna waxa uu ninka maariyaha ka ahaa warshada ka ah injika waxaan niri maxay ku dhacday waxay ku dhacday sonkortii dibaddan qaatay lacagtan haysan ayada ku gatay bangigana guduud baa kaga jira lacag ma haysto baqaaran dhigana ma hay lacag ku tar ma haysto waa ka tagno wasiir ganacsiga oo tagno waxa ay arintaas shaqo ku miliibi waa ka tagno wasiirka warshadaha tagno arki doonaa waa ka tagno nin kale u tagno arrimaha xil saarasna way yiri ma taqaanay waa dadka dabayna waxba qabanina Soomaaliya markii la qaban waayaan oday maxay sababtay afisyoon ugu tii waxaan isaasay jirtay waxa la ruuxa ka hooseeyana waa soo maray sonkorti dibadda laga keenay bay gadahayaan tii wadanka waa halkaas taala shaqaalihi mushaar male dakhligii dawladda male sonkorti warshada dhex taala
waan soo in allaale intii kaa hoosay shaqadaan lahaydna waa soo maray waxna waa ka qaban waayay xagga fadhiisuur gambaleer ku dhigi waxaa loo yeero waxa allaale wixii madaxayo ku shaqa lahaa arrinta iyada markii la yimid oo odayga loo tegay laba ka mid oo soo horeysay baa waxay yidhaaheen arrintu waa xunta meel xun bay maraysaa hana dacweynin sokortiina waa qaadaynaa waa beecgeynaa haddayd madaxweyne hortiisa ka tiraa qaadaysaan waxba kama qaban ku markaan meeshii tagnay bay yidhaaheen madaxweyne hadda anagu hore ways aragnay sokortii inay arrintii noogu yarteen ognahay waa qabsanayna shaqadii waryaa fadhiistu yiri hebel buu yiri nin hebel odaya oo ma waxaan kacaanka u dhalanay ummadda soo inaan qayaanabi meeshii aad intaad shaqaalaha isna u tagtid aad abaalmarin siin lahayd ood bilada siin lahayd ood dalac siin lahayd oo waxay soo saaran ku ammaani lahayd in ayagii caruurtooda sonkortay soo saaran gaajo u baktiyaan oo shaqaale mataqaanaa shisheeye iyo warshado shisheeye lacagta soomaaliya lagu maamulo miyaan ummadda soomaaliya ugu dhaaran oo kacaanka ugu dhalin saas ma ahmicnaha buu yiri soomaalida waxay ku mahmahdaa buu yiri il ribix arkaysaa rixin ma aragto adinkii ganacsatada tuugada ah yaa sonkortaa dibadda ka keenteen hal kiintaal suuqa lama keeni karo inta sonkorta isna ay ka dhammaanayso marka sonkorta isna dalka ay mataqaanaa ay mataqaanaa ay baahida dabooli weydo markaa suuqa soo geliyay intiina halkaa fadhida ninkaana cabdi yuusuf uu yidhaahday isagaa idinkugu xil yar isagaana idinkugu yar isaga waa gartay bulshadiisna Soomaaliya wax ku fadhido intiina kale ma garan miyaa soo